Getirin komanda Şükrü Sarım. Chief Engineer. Thank you, sir. Petty Officer Orçun Okatan. Thank you, sir. Third class Petty Officer Emin Nazır. Duty of Petty Officer. Thank you, sir. Sol! Honorable President. Honorable General Ahmet, Defense Minister, sir. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan soo dhaweynayaa walaalaha Turkiga ah safiirka iyo saraakiisha sharafta badan ee ciidanka badda ee Turkiya markabkan soo hogaamiyay ilaa uu ka yimaado dekedda magaalada Muqdisho sida wasiirku u sheegay maanta waxay tilmaam cad u tahay heshiiskii aan galnay Soomaaliya iyo Turkiya bishii February ee sanadkan bilowgiisii in ay miradhal u noqday hawshiisiina ay bilaabatay inkasta oo heshiiskaas dhaqangelintiisa wax badan oo kamid ay soo socdeen laakiin de wax la arki karo oo muuqda ma ahayna wax badan oo kale oo ku saabsan dhaqangelinta iyo qaababka iyo socodsiinta heshiiskaas ayaa socday oo loogu diyaar garoobaya in si buuxda heshiiskaas uu dhaqan galo oo aan laablaab iyo guuldarro midna aan lahayn laakiin maanta markabkan inuu yimaadahay waxay daliil u tahay heshiiskii inuu socday oo uu dhaqan galay waxaa kaloo rabaa fursaddan inaan uga faa'iidaysto halkan mahadcelin iyo hambalyo iyo bogaadin intaba aan u mariyo dadka Turkiya anoo u sii marsiinayo madaxweynahooda walaalkeen Recep Tayyip Erdogan oo aan leenahay mudane madaxweyne dadka Soomaaliyeed aad iyo aad ayay kaaga mahad celinayaan adiga iyo shacabka reer Turkiyaba sida hagar la'aanta ah walaalnimada ah ee aad u garab taagan tihiin markasta oo dadkan iyo dalkani duruufo adag ay soo wajahaan sidaasna waxaad ku kasbateen ma aha saaxiibo waxaad ku kasbateen walaalo muddo kooban oo taariikhda dhexe ah xoogaa aad isweydeen laakiin taariikh hore oo fog oo aad iyo aad xusid u mudanna aan wada lahayn haddana ilaahay idankiis ay halkaasi ka sii ambaqaadi doonto oo aad adigu u tahay odagii sababay in taariikhdaasi qadiimkeeda hore la soo celiyo walaaltinimadaas hore ee boorku fuule boorka laga jafo dibna muxuu ahay aan isugu soo noqon maanta waa maalin kale oo weyn waxaan hambalyaynaynaa shacabka iyo madaxda mas'uuliyiinta dhammaan reer Turkiya oo ah maalintii xurriyaddooda maalintii maxaan ku rahaa sharaftooda iyo karaamadooda ay la soo noqdeen sida hadda halkan looga sheegay taariikhdan aan ku ogeyn waxaan sidoo kale bogaadinayaa maalinta carruurta adduunka iyo maalinta carruurta Turkiya dabcan waana maalinta carruurta Soomaaliya haddii aan la yiraahdo mudane Mustafa Kemal Atatürk oo ah aabihii jamhuuriyadda Turkiya waxay ahayd fikir uu keenay socdayna oo dhaqan galay waxa uu keenay jamhuuriyadda Turkiya uu keenay waana dhaqan gashay waata 100 sano u dabaaldegaysay sanadkii la soo dhaafay waxaan leeyahay marka walaalaha Turkiga dad maanta inta Turkida ah ee dalkan joogta caalamku dalkan waa u soo wada gurmaday kaalmo badan iyo wanaag badanna adduunyada waa ka geysatay waana u mahad celinaynaa dad badan ayaana naftooda ku waayay ayaga oo dalka Soomaaliya kaalmaynayo oo qaarado kala duwan iyo wadamo kala duwan ka yimid dhammaantood ka abaal dhicmayna waa u mahad celinaynaa waxaan rabaa si gaar ah inaan u xuso walaalihii dhawaan Turkiga ahaa ee ayagoo samafal qof Soomaaliyeed oo dhibaataysan oo baahan u samafalayo nimankan cadowga ah ee argagixisadu ay dileen waa ka tacsiyeynay waana ka tacsiyeynaynaa
waana xusaynaa mar kasta walaalahaasi iyo kuwii ka sii horreeyey oo sidoo kale ku geeriyooday ayagoo dadka soomaaliyeed u samafalaya oo maxaanku idhahdaye garab taagan waxaan leenahay ilaahay ajar iyo xasanaad ha idinka siiyo ummadda soomaaliyeedna taariikhdeeda waa idinku xusaysaa waana idinkaga abaalhaysaa intaa kadib waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan ugu baaqoon u sheego kalsooni badan inay qabaan ayagoo ku qaba kalsoonidaas badan dowladdooda ayagoo ku qaba kalsoonidaas badan heshiiska aan la galnay walaalaheen turkiya iyo ayagoo ku qaba kalsoonidaas walaalaheen turkiya sida ay soomaaliya u garab taagan yihiin oo aan sheeko iyo hadal iyo qoraal aan ahayna ficil ah maanta dadka ugu badan ee ajaanibta ah ee ka shaqaynaya samafalka ayaa jooga soomaaliya oo turki ah dhakhaatiirta ugu badan ee dadka soomaaliyeed daaweynaya ayaa jooga soomaaliya xarumaha ugu sii casrisan oo maalin walba sii kordhaya ee caafimaadka ka shaqeeyo ayaa laga furay dhowaan waxaa la furay center ama xarun lagu qalo wadnaha xarun lagu qalo wadnaha open heart surgery waxa la yidhaha lagu sameeyo ayaa laga furay halkan soomaaliya isbitaalka muxuu ah Rajab Tayyip Erdogan waxaa sidoo kale dhowaan ayadana la furi doonaa xarun kale oo ayadana lagu daaweeyo kansarka waa fursado aanay dad badan oo na kaalmeynayay aanay noo hayin ama aanayna siinin waa ka mahad celinaynaa dadka soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa arrintaasi arrin maxaan ku idhahdaa siyaasad ama NGO nimo ama looga dan leeyahay maaha annaga soomaali haddaan nahay iyo shacabka turkiya waxaa naga dhexeeyo wax saaxiibtinimo ka weyn waxaa naga dhexeeya walaalnimo waxaa naga dhexeeya maxaanku idhahdaye caqiida waxaa naga dhexeeya dhaqan suuban waxaa naga dhexeeya taariikhi qadiimi ah oo muddo dheer soo jirta sidaas daraaddeed annagoo dhammaanba saaxiibada caalamka oo dhanba xushmad iyo abaalmarin iyo muxuu ah qadarin u hayno haddana waddanka turkiya waxay noo muujiyeen wax ka duwan wixii hore maanta soomaaliya waxay u sii dhowdahay oo ay intii hore uga sii dhowdahay in ay badaheeda iyo biyaheeda ilaashato dabcan waddo dheeraa weli noo dhiman dadaal badanaa weli noo dhiman oo inaan qabsanno ay tahay annaga soomaali haddaan nahay iyo intay caalamkana kaalmaynayso oo ay ugu horeeyaan walaalaheen turkiya laakiin waa uga sii dhownahay meeshii hore ma dheera maalmaha ciidanka badda ee soomaaliya ay biyaheenna si buuxda u ilaalin doonaan ayagoo keligood ah maalmahaasi way soo socdaan waana soo dhow yihiin intii horena waa ka dhow yihiin inay soo dhow yihiinna waxaan aad iyo aad mar kale ummadda soomaaliyed ugu sheegayaa heshiiskii aan galnay iyo garab istaagga walaalaha turkiya ayaa maalmahaas aan baddeenna inaan keligan ku filnaanno aan gaari doono soo dhoweeyey oo wakhtigii dheereed ee hore noogu soo qaadatay ama mid dheeroo kale ay nagu sii qaadan lahayd ka soo gaabiyey brobagandada dacaayadaha wararka tafsiiraadka ama fasiraadda xun ee laga samaynayo guud ahaan xiriirka soomaaliya iyo turkiya ama gaar ahaan heshiiskii dhowaan ee bishii february sanadkan aan galnay dadka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu sheego waa waxba kama jiraan waa dad maxaanku idhahdaye noo diidan inaan horu soconno waa dad diidan inaan meesha aan joogno ka dhaqaaqno waa dad diidan inaan soo ceshanno sharafteenii iyo heebateennii iyo karaamadii ummad ahaan aan lahaynay inaan soo ceshanno waxaan rabaa dadka soomaaliyed inaan u sheego waxaasoo dhan ma suurto gelayaan dowlad haddaanan helin dowladna waxay leedahay aasaasiyaad la yaqaanay leedahay ciidan ay leedahay dowlad si ay u jirto dastuuray leedahay dowladi siday u jirto qawaaniin hagta ee howlaheeda ayay leedahay dowladi siday u jirto hay-ado ama institutions ayay leedahay dowladi oo xooggan oo dadkeeda u adeega siday u jirto intiba gacantaan ku jirnaa dacaayadaha maxaanku brobagandada oo mashruuca soomaaliya dib ha u soo noolaato la shaksiyadaynaayo la qabiilaynaayo la gobolaynaayo waxaasoo dhamme waa astaan iyo calaamooyin cadowga u shaqaynayo waa astaan iyo calaamooyin dad cabsaday oo meesha in laga dhaqaaqo oo loo baxo iftiinka iyo dimuqraadiyadda iyo horumarka loo baxo dadka baqaya waaye dad badani soomaalidu waxay ku maamahdaa carruurtu habeenkii cabsadaan
waayeelkuna maalintii dad badanaa stageka carruurta joogo oo weli markaan colaaddii dadkii aan colaadda ka cabsan jirin ee colaadda u bareeray ee dagaalka ku soo hayey ee khilaafka ka soo shaqaynayey ee xabadaha dadka soomaaliyeed ku ridayey maanta waxay col la yihiin nabadda horumarka dowladnimada soo hanashada meelihii maqaamkii aan ku lahayn caalamka ee dib aan usoo haranayno nabadda aan maalin walba kusii dhaqaaqayno hore aan ugu sii soconno intaasay ka baqayaan waa kuwii shalay colaadda aan ka baqi jirin colaadda ku dhiira jiray dadka soomaaliyeed horay u soo colaadiyey xabada ku soo riday dagaal u soo sameeyey la yaqaano maanta waxay ka baqayaan nabadda waxaan leenaha dadka soomaaliyeed tashwiishka iyo dacaayadaha maxaa ku ihahdaye ka dhagool ka ahaada dalkani waa dhaqaaqay waa socdaa dhinaca nabadda dhinaca dowladnimada dhinaca dimuqraadiyadda dhinaca caalamka doorkii aan ku lahayn oo la yaqiinay meesha u ahay inaan dib u soo ceshanaan ku soconnaa cid kasta oo aan kaasho karnana waa kaashanaynaa cid kasta oo safarkaas dheer aan ku jirno inay nala marto nagu kaalmayso nagu garab istaagto diyaar u ah waa kaashanaynaa cidday doonto ahaatee laakiin waxaanan kaashanayn oo aanan dhegna jaraq u siinayn cidda doonaysa meesha aan taaganahay inaan taagnaano oon kusii nagaano oo aanan hore u soconin qofkas niyadda ka jecel midka kelmadiisu ay tafsiirkaas yeelan karto midka maxaanku ihahdaa cadowkalkaalka ee cadowgeena ee muxuu ahay kaalmaynayo midka maxaanku ihahdaa xorriyadeenni iyo dowladnimadeenni iyo karaamadeenni iyo sharafkeenni cadowga wax u dhimaya kaalmaynaya ee maxaanku ihahdaa codka u noqonaya midka argagixisada iyo maxaanku ihahdaa kuwa dadkeena waxaynaya dib u noqon waa waxa aan ka soo horjeedno waa waxa aan rabno dadka soomaaliyeed inay ka digtoonaadaan hadallada dadka qaarkii ay ku hadlaan micnaha dhabta ay leeyihiin u yeela cabsidane waa waxa meesha nagu hayee aan ka gudubno dalkan lama dhici karo lama boobi karo qof iskama qabsan karo dictator ma soo noqon karo muxuu ahaaye wax qof asiga inta meesha iska yimaado iska joogayo ummadda soomaaliyeed aanay keensan horaan u ballanqaadnay ballanqaadkii waa ku taagannahay dadka soomaaliyeed inaanu xukumin qof ayagu ay u dhibteen talada mooyaane qof kale inaanu xukumin meesha ugu hoosayso oo heer degma hadday tahay ilaa meesha ugu sarrayso oo ah madaxweynaha jamhuuriyadda ee xafiiskayga ah qofna inaanu fadhiisanin dadka soomaaliyeed noo fadhiisa aanay dhihin waa iska joogayaa waa iska maxaanku iraa magacaysanayaa waktigaan dib u jiidayaa qalalaasaan abuurayaa si aan cudurdaar uga helo in maxaanku irahdaa waktiga uu sii dheeraad iyo wax lamida kuwa mas-uuliyiinta ee maanta jooga allah ka shaafiyaan leenahay muxuu ahay kuwa soo socdane haka maantoobaan dabcan waxaan la tacaalaynaa waa adduunyo duruufuhu intaan degdegno ku fimayno waxaan la tacaalaynaa duruufaha waayaha iyo amrul waaqica jira xaqiiqada dhulka ka jirtaan la macaamilayna siyaasadda waa tii lagu macneeyey waa fanul mumkin waxaa la yidhi the art of possibilities waxa suurtagalka ah laga shaqeeyaa maanta ee wanaag ku jiro waxaan suurtagal wax qurxoon laakiin maanta aan suurtagal ahayn wanaagna aanu ku jirin suurtagal mahmahdii waxaan kusoo gabagabaynayaa warkayga mahmahdii ama xikmaddii soomaalida ahayd maxaasan يعني maxaa qurxoon waay maxaa suuraabaa ka roon waxa suuraaba aan samayno waxasan ayagaa imaan doona waana gaaraynaa aad iyo aad ayaa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu